disturbance uu dhaco qof walba waxaan ka xirnay codka waxaan u furnay presenterka engineer cabdiraxiim isagaan dhegeysan doonaa insha allah siduu fursadan iyo jaaniskan noola wadaago hadduu la yiraahdo barnaamijkan waxa weeye waqti yaroo kooban buu socon doonaa insha allah hadduu la yiraahdo kadibna waxaan idiin furi doonaa su-aalaha ad qabtaan chatbotkana waa idiin furnay ama chatboxka waa idiin furnay wixii su-aalaad haysaan groupka ruuxadiisa haddaad soo dhigtaan insha allah intii aan ka gaari karo su-aalihiinana waxa weeye waan weydiin doonaa hadduu la yiraahdo waana bilaabanaynaa hadduu la yiraahdo insha allah marka koowaad waxaan ku bilaaban doonaa aayadaha qur-aanka bismillaahi raxmaani raxiim qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad sadaqa allahu alcadiim waxaan rajeynayaa insha allah webinarkan inuu si successfully insha allah noogu dhammaado wax badan aan ku kala faa'iidno hadduu la yiraahdo webinarkan waxaa soo qabanqaabiyey Somali Student Research Network ujeedada loo soo qabanqaabiyena waxay ahayd in ardayda Soomaaliyeed oo danaynaysa fursadaha iyo jaanisyada Erasmuska iyo Dadi Scholarshipka inay ka faa'iidaan qaabka loo apply gareeyo fursadaha iyo opportunitieska Germany-ga ka jira sidoo kaleeto haddii uu qofku jaamacad dhigto uu danaynayo vocational training qaababka uu uga faa'iidaysan karo barnaamijkan Erasmuska iyo Dadi Scholarshipkaas iyo wixii la mida sidoo kaleeto engineer cabdiraxiim intuu barnaamijkooda insha allah wuxuu idin tusi doonaa real life experience-ga ku saabsan Erasmuska iyo Dadi Scholarship qaababka aad u xariisan lahayd fursadaha sidaad uga faa'iidaysan lahayd marka haddaan overview ka bixiyo sida caadiga ah markii barnaamij la qabanayo qofka presenterka biographigiisa kooban baa la akhriyaa marka engineer cabdiraxiim waxa waaye waxa uu ka graduate gareeyey bachelorkiisii iyo masterkiisii fildiga mining and mineral processing jaamacadda la yiraahdo Mugla University Turkey sanadkii 2020 ilaa 2025 sidoo kale hadda masterkiisa qaybtii masterkii labaad wuxuu ka sameynayaa mining engineering jaamacadda la yiraahdo TU oo ku taala dalka Germany-ga wuxuuna bilaabay 2025 ilaa haddana uu wadaa wax rajeynaya insha Allah si guul ah inuu ugu soo dhamaato dhanka research-ka wuxuu focus ka saaraa qaybaha sustainable mineral processing-ka iyo purification iyo wixii la mid ah marka insha Allah session-ka waxaan idin ka dhex bixi doonaa idinka iyo cabdiraxiim si aad u kala faa'iidaysataan aniguna waxaan ahaan doonaa insha Allah moderator-ka xiriiryaha barnaamijkan magacayguna waa Cabdinaasir Xirsi dhawaana qaatay PhD in electrical engineering marka soo dhawaada insha Allah engineer cabdiraxiim ayaan waxa waaye insha Allah ku wareejin doonaa hadduu la yiraahdo engineer cabdiraxiim aad iyo aad u mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga iyo fursadan iyo jaaniskan aad ardayda Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed aad siisay insha Allah waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka faa'iidno hadduu la yiraahdo waxa weeye session-ka adan kugu soo wareejiyay insha Allah slide-kaagana waa inoo soo share garan kartaa barnaamijku waa dhankaaga assalaamu calaykum calaykum salaam engineer Dr. Xirsi aad ugu mahadsan yahay maasha Allah waxa waaye biography yar oo kooban bini'aadanku badan kalama qabsado in naftiisa laga sheekeeyo marka xogaa qariibay dareemaan dadku markii adiga lagaa sheekeynayo qariib aniga ahaan tusaale ahaan marka aad u mahadsan tahay hordhacaas yar shaashadeeda in la arko ayaan rajeynaa very clear way mahadsan tahay waa nadiif soo maahan engineer shaashadeeda yes waa very clear way codkaaguna waa very clear
ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر labaad akhyaarta meeshan ku jirta soo dhawaada ayaan idin leeyahay. galab, duhur, subax, hameen, wax kasta oo idin tahay wanaagsan insha Allah. Jimco wanaagsan. Insha Allah tacaala waa bilaabananaa waqtiga isagoo anoo waxba in kusii dheeraan. Waxaan rajeynaa inaad waxyaabo badan ka faa'iideyn sida injineerku doctoorka uu noo sheegay. Insha Allah tacaala mar walba qalinkaaga iyo soo dhaweyso note-kaaga haddii ilaa yiraahdo su-aalo wixii aa qabto oo kugu soo dhaca inta programku socdo note garayso insha Allah. xilliga uu dhammaadana insha Allah tacaala ama chatka ku soo qor ama sidii haba moderatorka fasaxa aad ku heshiin insha Allah. marka hore ayaan u galaynaa haddii ilaa yiraahdo. 1 second iga raalli ahaada wax yar. wax yar iga raalli noqda. waa caadi dhamayso. notification qaaraa jira marka haddaan dib u sheer garaynayaa shaashadeeda insha Allah. marka waa bilaabanayna haddii ilaa yiraahdo. insha Allah marka hore waxaan ku bilaabaynaa horta introduction year dad scholarship muxuu yahay horta maxaa loola jeedaa dad. sidiisa caadiga ah waxa waaye German academic and research interchange program ayaa la dhahaa. waxaa loogu talagalay wax isdhaafsiga xagga akademiyadda. waxaa fangareysa dowladda Jarmalka. waa program oo government funded ah. waxaa lagu taageeraa ardada international studentska ah. sidoo kale localku ku jiraan laakiin nama qoseydo. waxyaabaha la ka fangareeya waxaa kamid ah tuition feeska, waxyaabaha la dhaho nolosha oo kale, living expenseska iyo safarka ardada ay ka taageeraan. waxa ugu badan oo programkan ka faa'iideysta waa ardada graduateska iyo wixii ka sarreeya maadaama academic uu yahay. master iyo PhD graduate markii laga wado waa levelka masterka wixii laga bilaabo. laakiin taa macnaheedu maaha sida aan dib ka arki doono ardada kale inaysan chance lahayn. inta ugu badan wuxuu xooga saaraa academic exchange-ga ama isdhaafsiga cilmiga. waxyaabaha ugu yaryar faa'iidooyinka ah waxaa kamid ah in jaamacado aad hesho top universities oo wadanka Jarmalka ah. waddan waxbarashadiisu aad u horumarsan tahay, wadamada Yurub ugu horeeya dhanka waxbarashada. advantage research inaa hesho cilmi baaris, inaa hesho research facility. taasoo ah fursado aad u qaaliya oo meesha kasta aadan ka heli karin adduunka. qofkii researcher noqday ama wax uun research ku saabsan ka qayb gala ayaa fahmi karaa culayska ay leedahay inaad hesho research facility. global networking inaad hesho waxaan isleeyahay midaani waa inay top noqotay ahayd oo ugu sara marto oo halkaa kula timaado. yacni inaad adduunka connections ay yeelato ayuu kaa saacidaya sidoo kale barnaamijkani iyo mustaqbalka dambe career opportunities inuu siiyo. haddaba si guud maxaa lagu ka fargarayaa barnaamijkan. si guud waxaa la ka fargarayaa bachelor degree students wuu ka fargaraynayaa. master degree students and graduates ay almost the same like master degree wixii ka bilowda iyo graduates wixii intaas ka dambeeya. doctoral candidates and young scientists haddii doctor candidate yahay ama graduate student dhinaca kale, ama se young scientist waxaa loola wadaa markaas waxaa la qof alaala farqiga u dhexeeya. waxaan maleynayaa badanka naga waa naqaanaa scientist, engineer iyo aqoon-yahan iyo cilmi baare iyo farqiga u dhexeeya. marka scientistiska ay inta badan maadaama uu academic interchange program uu yahay. sidoo kale university teacherska way fursad ay ku leeyihiin halkan iyo senior scientistiska ayagana. marka sida mar walba centerka ayaa xoogu saaran yahay labadaa dhexe oo centerka ah oo hadii lasoo koobo master and PhD students ama postdoc sidoo kale ama postdoctoral fellows intaba xoog ayay saaraan. eligibility criteria marka su-aalaha ugu badan oo la isweydiiyo waxaa kamid ah maxaa u baahanahay programkan, sidaan eligible ugu noqonaya ama sidaan xal iiga baahan yahay. horta dhammaan ardada international studentska ah barnaamijkan eligible ay u yihiin
all international students. Eh, waxaa laga rabaa inaad haysato 4 sano oo bachelor degree ah ama wax u dhigma si aad u xareydo master degree. Yani wax u dhigma marka laga wado waxaa jira wadamada qaar oo bachelor degree-ga 4 sano aysan ahayn 3 sano iyo bar, wadamada qaar 3 sano ay tahay, wadamada qaar bachelor aan la dhihin magaceeda dhanba, ama degree-ga aan bachelor ba la dhihin, ama BSc magacyo kale ah. Marka muhiimadeedu waa fahmi kartaa, wax aad ku geli karto, shahaado aad ku geli karto master degree inaad haysato eligibility criteria-day ka mid tahay. waxaa ka mid ah candidate must have master degree or equivalent if applying for doctoral program. Marka si caadiga haddaad PhD xareynaysana waa inaad master haysataa, haddaad master xareynaysana sida hore ugu sheegay waa inaad haysataa batch haysataa. halkan waa meelaha ugu adag, shuruudaha ugu adag inta badan oo ardada ay face gareeyaan, qofka inuu haysto 2 years of professional experience. sida aan dib ka arki karno programkan ka arki doono insha Allah, programkan aad u ballaaran yahay. waxyaabaha aan rabo halkan inaan horumariska ku sheegay ay ahayd that program markii lagu dhaho ama that scholarship waxaa soo hoos galaya 100 iyo intaasoo ku dhawaad 200 oo program oo kala duwan oo mid walba criteria-diisa ay gooni tahay. marka waxaan waa general criteria. programme waxaa jira aan kaaga baahnayn experience, kuwa aan kaaga baahnayn bachelor degree. يعني mar walba waxay ku xiran tahay programka aad xareynayso. website-ka ayaan isla tegi doonaa, waa arki doonaa insha Allah. intaan yarta kuwiga ayaan ku dul mari doonaa marka dii Ilaahay yiraahdo. international students-ka sidoo kale jooga Jarmalka muddo ka badan 15 bilood ma xarey karaan programkan. haddaad Jarmalka timaado waxa ku xarey kartaa muddada ugu horeysa ilaa iyo 15 bilood. 15 bilood haddii la dhaafo ka badan aad Jarmalka degan tahay, eligible uma ihid. midani waa fixed. professional experience waxa laga yaabaa programada qaar inaysan ku weydiinin, laakiin waxyaabaha aan isbedelaynin tan oo kale ka mid ah fixed waa 15 bilood haddaad dhaafto oo Jarmalka degan tahay. there is no age limit. disadvantage-ka ayay ka mid tahay. programada qaar waxaa jiro age limit sameeya ardayga markuu xareynayo masterka. tusaale ahaan programada caanka ardada Soomaalida badanka ay yaqaaniin Turkey Bursaleri iyo programada wadamada Asiaanka ay bixiyaan scholarships ay bixiyaan intooda badan oo age limit kale ardayga markuu batch ka xareynayo inuu da'daas yahay, master markuu xareynayo da'daas iyo si lamid ah. laakiin that scholarship ma lahan wax age limit ah. dokumentiyada ugu badan general markii la yiraahdo sida arki doono program kasta soo qaybtiisa ay gooni sii tahay, waxaa lagaga baahan yahay inaad haysato curriculum vitae ama resume wax la dhaho, personal motivation letter. This is very important. waxaan is leeyahay waa midda ugu muhiimsan sababtoo ah inaad haysato motivation letter. waxaan qiyaasayaa ardada badankood kule akademiyadan dadkii ama interchange programkan dadkii hore ugu jiray ama kamid ahay Somali research students way yaqaaniin sida loo diyaariyo waxyaabahan ama CV-ga ama motivational letter-ka iyo waxyaabaha lamidka dokumentiyada. qofka aqoon kolley wuu soo baari karaa YouTube-ka engineer-ka dhammaantood way ku jirtaa, doctorka YouTube-kiisa way ku jiraan, sessionadii hore dadkii ka qayb galay saas oo kale. marka qofka aan ka qayb gelina wax yar fudud waaye, wax saas u sii badan maahan. motivational letter magacyo badan in loo bixiyaa laga yaabaa, letter of statement, motivational letter, magacyo kale kuwa kale inaad bixiso. laakiin muhiimad mar walba waxaa waaye maxaa kalifaya programka inaad soo xareyso. yani waxa sababta u xareynayso programkan inaad leedahay this yani points dadka kaa soo dhex saari kara. yani ani waxaan ka imaaday tusaale ahaan jaamacadeedu waxbarashadeedu waa fiicneed, laakiin dhaqaalahayga ayaa hooseeyey. family waxaan ka imaaday dhaqaalihiisu hooseeya, isma kaafi garin. waxaan doonayaa waxyaabahaas inaan waddankayga kusoo kordhiyo, laakiin waxbarasho fursad uma helin inaan waddanka dibadiisa wax ku barto. waxaan doonayay waxyaabahaas waddankaas oo kale aan tagay. tusaale ahaan waa motivational ay noqon kartaa, ama waxaan aqaanaa luqadda waddankaasaan intaas ka aqaanaa, waxaan doonayaa inaan luqaddaasna horumariyo, fursadaha waddankaas ka jiraan ka soo faa'iideysto. waxyaabo badan ay noqon karaan yani motivational. halkan arday waxaan rabaa inaan kala dardaarmo badankood ardada seniors badan inay ku jiraan waa qiyaasa oo waxyaaba badan fahamsan, laakiin dadka qaar waxaa jiro ustaadi ChatGPT inta isticmaalo motivation letter ma qori karaa. ustaadi that's not going to be unique. يعني ChatGPT iyo AI waa isticmaali kartaa, laakiin waxaa u baahan tahay marka hore inaad adiga haysato pointskaaga. marka taas ku dadaal haddii Ilaahay yiraahdo. points adiga kuu qoran marka hore inay jiraan waay oo adiga dadka kale kaa soocay. sababta uu qofka judge-ka ah ama qaadiga ah markuu aqriyo waraaqadaada dadka kale wax maxaa kaa duwaay
muhiimad meesha warqadan muhiimad sababta loo siinaa taas waa letter of recommendation way fiican tahay inaad haysato waa shuruudahay ka mid tahay. Waxaa laga soo qaataa macalinkaaga hadaad bachelor tahay thesis supervisorkaaga iyo kale macalinka ugu fiican inaad kasoo qaadato head of examinationkaagii rectorka jaamacadaada oo kale iyo wixii lamida iyo supervisor aad la soo shaqeyday waxaasoo dhan waa kasoo qaadan kartaa. Experience letterka qofkii looga baahnay oo programkiisa ku jiray in 2 sano oo experience ah shardi ay ahayd programka xareynaysa ku xiran taasaan arki doono inaad haysato waa experience letter ama employment letter caddaynaysa inaad 2 sano soo shaqaysay waxa rabta kasoo shaqeey laakiin waxa aad kasoo shaqaysay waa inay la xiriiraan waxa aad xareynayso. يعني haddaad tiraahdo tusaale ahaan engineer baan ahay oo engineer baan kusoo shaqeynaya laakiin waxaan rabaa inaan xareeyo social science waa fiican tahay waa soo shaqaysay laakiin waxaa lagu leeyahay wax iskuseeya maaha. tusaale ahaan haddaad ahayd macallin baad ahayd ama researcher baad ahayd institute ka shaqeynayay waxaad rabtaa inaad PhD samayso ama master samayso yani waa researchkii aad bay kuu saacidaysaa marka experiencegaas marka mar walba relevant inay noqoto waaye. English language proficiency inaa haysato waaye haddii programku English yahay hadduu Deutsch yahay ama German yahay waa inaad saas oo kale haysataa language proficiency. Certified copies of academic degrees tani waa muhiim yani waraaqaha aad gudbinayso inay yihiin waraaqa certified garaysan oo team baraysan oo shaabadaysan inay yihiin yani copy keliya inaysan ahayn iyo transcriptga yani academic degreeska marka lagu leeyahay diplomada noqon karto waxaa noqon karta grading systemka haddii jaamacadaada lagaga baahdo shuruudo badana noqon karta marka inay saas oo kale shahaadooyinkaaga dhammaantood iyo dokumentiyada aad gudbinayso dhammaantood inay certified yihiin. Marka taas daad bay ahayd. Erasmus Plusku muxuu yahay marka asna balaan isla aragno waa u tegi doonaa detailska website-ka. Erasmus Plusku wax yar buu kaaga duwan yahay daadka asagu waa EU exchange program yani European Union exchange program. Wadamada Yurubta ayaa ardada isku dhaafsada jaamacad ku taala wadan Yurub ah haddaad dhiganayso waxaad chance u haysataa inaad jaamacad kale oo wadan kale ku taala aad kusoo qaadato semester ama 2 semester ayadoo kreditkaaga uusan kaa lumeynin oo kreditkaaga aa haysato waqtina uusan kaa khasaaraynin yani waqtigii aad jaamacadda semesterkii jaamacaddan aad ku qaadan lahayd inaad meel kale kusoo qaadato literally saas waaye hadduu istaadhiga yahay. faa'iidooyinkiisa waxa waaye study and work abroad yani student maadaama aad tahay at the same time xilligaas waa aad shaqey kartaa oo shaqo experience ahaan saad uga soo faa'iido aad ka shaqey kartaa. Support students across Europe marka asaga badanka barnaamijkan marka wadankii inuu ka jiro ayaa ugu maqaalo ah oo jaamacad ka mid ah badanka jaamacadaha Yurub u dhexeeya sida aan niri iyo wadamada Yurubta hoos yimaada ama Yurubta kasoo daba dhow sida wadamada Asia wadamo badan oo Asian ayaa ku jira Turkiga oo kale Azerbaijan oo kale wadamo waxaan maleynayaa xitaa Gulf countries qayb ka mid ah inay ku jiraan wadamo saas oo kale Asiada fogna mararka qaar way soo galaan Japan oo kale marka wadankii oo kale anaga programkan inuu ka jiro waa maqlay kale halkan aan magaceeda ka sheego ma doonayo laakiin jaamacad ka mid ah jaamacadaha wadanka ayaa ugu maqaalo ah inay programka uu ka jiro laakiin ardada ay hadda ay awoodaan kaliya inay wadamo kale u diraan aysan Yurubta usoo diri karin marka si guud Erasmusku waa noocaas exchange program waaye. waxaa 2 nooc marka kale leeyahay study program iyo internship program. Study programku waa 3 bilood ilaa 12 bilood abroad waaye oo qaadanayo inaad jaamacad kale kusoo qaadato partner universities inay ahaato waaye marka jaamacadaha contracts inay ku jiraan waaye. Credit transfer sida aan idin sheegay yani kreditka ama dhibciha aad kusoo qaadatay ama cashiradii aad kusoo qaadatay jaamacadaas ma kaalumayaan jaamacadaadii marka ku laabato waa lagu tirinaya yani maadooyinkii tusaale ahaan haddii maadooyinka compulsory laga rabay semesterka inaad ku qaadato markaa baxdo maadooyinkaas maadooyin u dhigma haddaad soo qaadato waa lagu tirinaa. Monthly supportina way ku siinayaan oo yani lacag billa ah oo ardayga lagu taageerayo muddadaas uu ku maqan yahay programka. waxaa jira sidoo kale Erasmus internship oo uu leeyahay internshipku asaga 2 bilood ilaa sanad ayuu u dhexeeyaa 2 bilood ilaa 12 bilood international experience ayaa helaysaa yani waa shaqo kani wuxuu kaga duwan yahay kaasi waxbarasho ahay kanna waxa waaye waa internship yani waad shaqeynaysaa ama research lab ka shaqeey ama shirkad u shaqeey ama voluntary ku shaqeey ama waxaa rabta ku shaqeey waxaa ku shaqeynaysa keliya waxaa muhiim ah jaamacadaada inay waxay ku weydiinayaan waxa ka shaqeynaysa inay backgroundkaaga ay la xiriiraan ama maadada aad dhiganayso
يعني haddaad dhiganayso science haddaad tahay science student haddaad tahay ama engineering haw ama wax kale ahaw waa inaad wax science la xiriira aad samaynayso yani lagama yeelayo science adoo ah inaad social aado ama social adoo ah inaad science ka soo aado waxay kuga adkaynayaan skill development ayuu ku siinayaa faa'iidada ugu weyn maadaama waxa waaye internship ardayda badanka waxay u helaan chance wadamada ay jaamacadaha ka dhiganayaan inay wax ay ka sameeyaan laakiin inaad jaamacaddii adoo wadankan ka dhiganaya inaad wadan kale ka soo shaqeydo intii aadan jaamacaddii dhammaynin waa fursad aada u qaaliya financial supportina waa la siinaa oo ardayga waa lagu taageeraya yani muddadaas waxaa jiro shayga saddexaad marka ausbildung maxaa la dhahaa jarmalka marka u nimaano program saddexaad oo jarmalka caanka ah oo ausbildung la dhaho ama vocational training ayuu noqonayaa luqadda ingiriiska markii la dhaho macnaheedu waa arday waa levelka ka hooseeya bachelorka si gaaban haddaan usoo koobno waa level ardayga secondaryga ilaa bachelorka u dhexeeya badanka 2 sano ilaa 3 sano ay ardadu ku sameeyaan oo ayaa lagu diyaariyaa wadamada qaar iyadoo theory ka jirta laakiin wadankan jarmalka totally waa practical yani 90% waa practical wax theory badan kuma jiraan waa vocational training oo practical ah marka waa dual system aan dhihi karaa yani waa study plus work sababtoo ah hands on experience waa yani shaqada korkeeda ayaa lagu barayaa ama hands on learning shaygii adoo jooga meesha dhexdeeda ayaa lagu baraya tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad pharmacy barato ausbildungka marka macnihiisu wuxuu noqonayaa inaad baxdo ood pharmacyga dhexdiisa ka shaqeydo kadibna halkaas supervisorkaagu uu kugu tababaro halkaas cashiro theory haddaa qaadanayso aad ku qaadato laakiin pharmacyga dhexdiisa lagugu tababaro lab haddaa ka shaqeynayso sidoo kale inaad labka dhexdiisa lagugu tababaro electrician haddaa samaynayso in halkii lagugu tababaro faa'iidada uu leeyahay marka xilligaa lagu tababaraayo waxaa tahay arday baa tahay at the same time waxaa tahay shaqaalaa tahay oo shirkada u shaqeeya yani mushaarkaaga waa laga yaabaa inuu ka hooseeyo shaqaalaha kale of course yani arday la tababarayaa tahay laakiin at the same time shaqaale ayaa tahay oo qof shaqo taga ayaa tahay yani qof jaamacad keliya aadaya maaha laakiin levelkaaga mar walba shahaadadaadu bachelorka way ka hooseysaa yani way ka hooseysaa markii lagu leeyahay international academic markii la tago laakiin waxaa laga yaabaa jarmalka gudihiisa markii la joogo inay fursadaha qaar ay bachelorka ka fursada badan yihiin qofka ausbildung ka sameeya maxaa looga baahan yahay ausbildungka asaga shuruudihiisu maxay yihiin bachelor la isagama baahna asaga maadaama uu bachelor degree ka hooseeya ausbildungku waxaa lagaga baahan yahay keliya high school diploma qofka inuu haysto bis ama secondary diploma sidaa loo diyaariyaa marka language preparation ayaa ayuu leeyahay marka hore oo ilaa B1 ilaa B2 yani luqadda waa intaan standardka caalamiga A1 A2 B1 B2 marka ilaa B1 ilaa B2 luqadda jarmalka inaad taqaano ayaa lagaa rabaa markaad ausbildung preparation samaynayso cultural training waxa la dhaho ayaa lagu siinayaa oo markaad luqadda soo qaadanayso internship ama practicum waa meesha dhexdeeda ayaa lagu barayaa iyo application support inay ku siiyaan oo haddaad doonaysa xataa inaad shaqo kale sii xareydo halkaas xilligaad ayaga la shaqeynayso inay ku support gareeyaan oo waraaqa iyo wixii aad haysato wixii aad u baahan tahay inay kugu support gareeyaan haddaad doonaynin ood ayaga ku qanacsan tahan inaad ayaga la sii shaqeyso faa'iidooyinkiisa marka waxa waaye learn well earning sida aan niri adoo waxa waaye wax baranaya ayaad at the same time lacag samaynaysaa degree lagaga baahan yahay ma jiro yani just high school ayaad u baahan tahay employmentiga ama qaabka in lagu shaqaaleysiiyo chanceska aad u sareeyaa practical experience-na waad helaysaa yani the same time adoo bax baranaya ayaad practical experience helaysaa marka intaas ayaan uga dhammaanaynaa ausbildung marka aan soo koobno conclusion ahaan haddaan isku soo aruurino maxaa u dhexeeya saddexda program daadka maxaan dhahnay waa more academic path waa yani waxaa loogu talagalay dadka academic ah ayaa loogu talagalay inta badan yani graduate post graduates PhD postdoc wadadaas dadka qaadaya ayaa loogu talagalay international exposure-ka waxaa ka helaysaa Erasmus Plus-ka oo ama study ahaado oo semester aad banaanka ku maqnaato ama se muddo 2 bilood ilaa 1 sano ah oo internship kusoo samayso wadankaaga wadanka aad wax ku baranaysa yani xilligaas wadan ka baxsan kaasna waa Erasmus Plus-ka ausbildungkana maxaa waaye practical career waa isaga yani shaqo lagu baraayo adoo xilligaas shaqaynaya at the same time marka adaa lagaa doonayaa inaad kala doorato markaas maxuu yahay aniga keebaa ugu habboon
duruufaha aad markaas joogto xilliga aad joogto shuruudaha aad kasoo bixi karto adoo u fiirsanayo inaad dhahdo aniga kee ayaa igu habboon. Marka dib haddaan ugu soo laabano dad scholarshipka marka step by step ayaan isla fiirinaynaa sideen marka ku xarey karaa maadaama shuruudihii aan arkay sidee ayaan ku xarey karaa. horta website-ka ugu horeysa marka ugu horeysa aan rabno inaan isla tagno waxaa la dhahaa fundingguide.de. mar walba waxaan ardada kula dardaarmaya website-yada aad booqanaysiin haddii aad wax jarmalka la xiriira aad raadinayso mar walba xaqiiji inay .de ugu dambeyso website-ka. mar walba inay .de ugu dambeyso iska xaqiiji saa u hubiso inuu yahay official page waxa aad booqanayso inuusan kugu noqon pages kale waxaa iska jiri kara waxyaabo iska scam ah waxaa jiri kara waxyaabo extra dadka private ah ay dad u sameeyeen. marka mar walba .de inuu ugu dambeeyo xaqiiji waxaad qoraysaa www.funding.guide.de website-kaas ayaan isla tegi doonaa overview halkaasaa marka hore laga soo arkay maadaama aan iri barnaamijku aad u ballaaran yahay waxaa u baahan tahay inaad sameydo filtering wax la yiraahdo inaad sameydo saad u go'aansato adiga wax kugu habboon. marka 5 steps aan maraynaa marka ugu horeysa website-kaan aan tegaynaa which program ayaan u baahanaa leenahay oo suitable aniga ugu ah goormaysa tahay aan apply gareeyo website-kaan kasoo ogaanay. website-ka ku xiga tegay waxa waaye dad.de ama daad.de kan waxa waaye marka waxa waaye advice ka helaysaa halkan advice-kaas website-ka caadiga aad ka akhrisan kartaa oo ka daalacan kartaa amase waxaad la xiriiri kartaa chatbox-ka ama AI chatbox ay leeyihiin waa la xiriiri kartaa waa la sheekaysan kartaa amase contact ay leeyihiin oo contact form-kooda aad buuxin kartaa. kan badanka ma badna inay kuu soo reply gareeyaan ama muddo inay kugu qaata laga yaabaa email inay kuu soo diraan laakiin waxa ugu fiican marka hore in adiga website-ka iskaa u daalacato luqadda ingiriis ayaad ka dhiganaysaa iskaa u daalacanaysaa wix alaale wixii su'aalo qabta halkaas ka akhrinaysaa wixii aad xoogaa fahmi weydo chatka ayaad loo sheekaysan kartaa oo su'aalo toos aad weydii kartaa. marka intaas kala cadaysato oo advice ah yani programkii aad dooro lahayd waa taqaanaa waanana waa soo advice waxaa kamid ah qaabka fiisaha meelaha fiisaha laga xarey karo waddanka aad joogto shuruudaha dheeriga ah ee programka uu yeelan karo maxay yihiin waxyaaba saas yani maadaama program specific ay tahay. kadib maxaad helaysaa more about the program offer marka intaan waxaa imaanaysaa marka information about the language course study program at the German universities or research institutions. markaan waxaad leedahay markaa u baahan tahay inaad si qoto dheer usii baarto waa isla website-kii dad.de laakiin qaybta Deutschland ama Deutschland macnaheedu waa Germany qaybtaas ayaad sii raacaysaa amase study in Germany sidoo kale waa geli kartaa information about the study program also ka heli kartaa waxaa kaloo geli kartaa myguide.de to find out doctoral programs yani halkan ardada waxay qusaysaa masterka haysta oo PhD-ga raadinaya research opportunities-ka PhD kaliya maahan masterka ardada haysata research opportunities-ka heli karaan saas oo kale postdoc-ga saas oo kale ardada raadinaysa. waxaa kaloo research in Germany.org org-gaan asna waa geli kartaa inkastoosan government website ahayn asna waad geli kartaa oo ayaga kugu recommend gareynaya oo programka website-kooda ayaan kasoo qaadanay waxyaabahan dhammaantood waxaan qornay maahan. kadib maxaa lagaga baahan yahay put together your application documents marka hadda waxaad soo ogaatay programka xarey lahayd waxyaabihii lagaaga baahnay fursadihii baad soo baartay oo fursado dheeri hadda kaaga habboon waxaa laga yaabaa inaad program doorato laakiin marka website-adan gashay fursado ka fiican inaad hesho. kadib dokumentiyada soo diyaarso if you have questions about the document or application procedure take a look al mar walba frequent asked questions /English meeshaan aaday muhiim in tahay meeshaan ardada fakiska inaad fiirisiin aaday muhiim tahay waxaa laga yaabaa 90% su'aalaha aad qabto inuu ka jawaabo mar walba programkan keliyana maaha website kasta oo gasho program kasta oo adduunka rabto inaad apply gareyso wax kasta oo rabto adduunka inaad gasho waan kula dardaarmaya inaad mar walba akhrisin frequent asked questions sababtoo su'aal meeshan ku jirta haddaad weydiido waxa laga yaabaa inay cidna kaaga soo jawaabin ama lagu qoslo marka badanka inaad halkan xoogga saarto isku day submit your application directly to the funding/guide.de halkaa mar walba dokumentigaaga ayaad ku diraysaa yani applicationka halkaanaad ka samaynaysaa application statuskaaga mar walba halkaanaad kala socon kartaa anytime notificationkaaga
waxaad leedahay dad portalkaaga ayaad ka ogaa kartaa mar walba. intaas marka waa presentationka website-ka ayaan isla tegi doonaa. Marka website-kan siduu u yahay, interface-kiisa maxaa laga wadaa, program noocee aan xaray karaa, sideen u kala filter garay karaa, waxyaabahaas ayaan isla arki doonaa. adaa mahadsantihiin. marka website-ka haddaan isla tagno insha allah. shaashadeeda inaa arki kartiin ayaan rajeynaa. clear way engineer. Okay. waa mahadsantahay ustaad. halkaa marka waxaa saas ku qoraysaa finding/guide.de ayaad google kasta ugu qoranaysaa, warkaaga soo baxaya. marka ama domain wuxuu noqon karaa noocan buu noqon karaa to.de uu noqon karaa domainkaagu, ama se wadamada qaar meelaha qaar ku xiran tahay. mararka qaar waxaan xasuustaa finding caadiga ah domain ahay muhiim maaha, laakiin mar walba adiga maxaa muhiim ah inaad qorto kelmadda inay kuu saxan tahay bisaa muhiima. finding/guide.de intaa inay kuu saxan tahay muhiima. halkaa markaa soo gasho halkaa markaa soo gasho program interface korta waa kana dad website-kooda official website-ka. halkaas waxaad ka geli kartaa study research in Germany, waa soo daawaca kartaa study research and teach abroad. sidoo kale fursado saas ay leeyihiin, waxaas oo dhan waa soo daawaca kartaa. xoogahaas kale adaas shaqsi u daawac kara. annaga meeshaan rabno maadaama waqti geliya halkana waa inaan rabno inaan isla fiirin programka, maadaama aan niri aad u ballaaran yahay, sideed uga soo xulan kartaa wax adiga kuu qaasa. tusaale ahaan halkan oo kale tegaysaa waddankaagaad ku qoraysaa Soomaaliya. halkan aad imaanaysaa program noocayaan rabaa. waxaan rabaa undergrad inaan fiiriyo, ma graduate. undergraduate aan isla fiiriyo, tusaale ahaan ardada ugu hooseeya oo kale. scholarship ujeedo noocee aad doonaysaa, ma training scholarship aad rabtaa, ma internship aad rabtaa, ma language course aad rabtaa, ma study aad rabtaa. let's say study aad rabnaa inaan dhahno. subject strict waa samayn kartaa haddii adiga subjectiga already, maadaama dadku hadda badan yahay. waxaan rabaa fursadaha dhan in la isla arko, laakiin hadhow adiga gooniga usoo dooran doontaa engineering, humanity, mathematics and natural science, law, language, veterinary medicine, agriculture. adaa gooni usii dooran kara, laakiin hadda aniga inta tan ma filter garay doono maadaama tan ay naga wada dhexeyso. laakiin Soomaali waa wada nahay. programka undergraduate-ka isla fiirinaa, hadda graduate-ka waa arki doonaa. study aan fiiri karnaa, hadhow waa bedeli kartaa halkaas. kadib maxaad leedahay refine aad leedahay. results maxaad heshay 15. markii hore u fiirsadaa dib u laabato. hal maraan dib idiin celinayaa. marka hore programku muxuu ahaa intaada filter garayn. sababta loo filter garaynaya aan kuu sheego. halkaa maxaa ku aragtaa 166 scholarship options. yacni 166 scholarship oo kala duwan ayaa ku jirta meeshaan. marka waa inaad filter garaydaa saa u hesho adiga waxa kugu habboon. waa inaad filter garaysaa. marka siro degdega undergrad aan rabaa halkaa. study aan rabaa inaan wax soo bartaan rabaa aad leedahay. kan waa saari kartaa, mana saari kartid, waa iska dhaafi kartaa. kadib Soomaaliya markaad doorato oo aan study dhahnay oo aan undergrad dhahnay 15 scholarship ayaan haysanaa oo kala duwan. 15kan marka mid anaga hadda uma furi karno, waqti uma hayno, laakiin hal mid ayaan isla fiirinaynaa. kadibna dhammaantood waa isla wada mid. yani tusaale ahaan noocee waaye waxaa xaray kara ku leeyahay undergraduate, graduate, doctoral, candidates, PhD students intaba way xaray karaan. programka magaciisa waa kana, waa gobol magaciis Baden-Württemberg, waa gobol Jarmalka kamid ah ayaa programka support gareeya. wuxuu ku leeyahay waxaa xaray kara high qualified high qualified undergraduate, graduate and doctoral students. intaasba way xaray karaan. marka saa ugu dhifato kadib ayaad waxaad helaysaa wixii hadday aan soo akrinayno waxay ahaayeen general requirements. hadda waxaad helaysaa overview programka u gooniya, descriptionkiisa maxaa la dhahaa, you can apply if you are, shuruudihii halkaanaad soo akrinaysaa. target groupkaaga yaa la doonaya, dadka la doonaya yihiin program internet for the highly qualified students and graduate. dadka la target garanaya dadkaas waa leeyahay. number of scholarship halka hadda aragto 1500 oo scholarship ay bixiyaan adduunka. waa hal program oo kamid ah 16 hadda isla filter gareyn. marka waa qiyaasi kartaa fursadu si u badan yihiin mar walba. durationkiisa muddada uu soconaya 3 bilood ilaa 11 bilood. yani kani maadaama program gaaban yahay. dib marka ugu soo laabto marka application requirements maxaa la isaga baahan yahay. marka halkaan aad imaanaysaa wuxuu ku leeyahay the higher education institution
Baden-Württemberg pre-selected the application as per their respective selection process if you necessary in coordinated with the partner institution abroad. tusaale ahaan yani kuwa qaar waxay ku leeyihiin institution aan la shaqeynayna annaga in coordination with the partner institution kan oo kale marka waxaa u baahan tahay jaamacaddaadu inay programkan qayb ka tahay tusaale ahaan waa kuu qabo wey waa ka laabanay next year leedahay maxaan kaloo geli karaa kana imaan kartaa tusaale ahaan waa sidoo kale just halkaan isla fiirinayna annaga waxaa waaye must contain detailed description of the proposed project internship or course or corresponding budget kana muxuu quseeyaa uu focuska saarayaa projectska internshipska iyo waxyaalaha lamidka ah ayuu xooga saarayaa waa soo laabanaysaa ardayda kan oo kale tusaale ahaan ima anficin haye weli waad laaban kartaa midka ku xigaa tagi karta midaan sage garey ayaa jiray oo sub-Saharan Africa si gooniga uu u saarayay xooga u saarayay kaas ayaan isla eegi doonaa I hope kan inuu ahay fadig yep so dadka ka qayb geli kara barnaamijkan maxaa kamid ah lagu dhahay Global South meeshaad ku aragto mar walba barnaamijkaas aad xoog u saar yani Global South-ka ardada koonfurta yani adduunka Asia Africa iyo Latin America badanka wadamada sub-Saharan Africa sidoo kale meesha ku aragto idan xooga saar ardada xarey karta academic requirements maxaa kamid ah enrollment at the state or state recognized higher education institution in Germany qodobkan ayaan rabaa inaan idiin sheego maxaa loola jeedaa barnaamijkan daadka badanka wuxuu qaybaha ugu badan dhammaantood ma wada aha intooda ugu badan waxay scholarshipka ku siinayaan markii jaamacadda aad iska diiwaangeliso amase ugu yaraan aad haysato documentskii aad jaamacadda iskaga diiwaangelin lahayd applicationka jaamacaddan aad gudbiso maxaa laga wadaa maadaama jaamacadaha Jarmalka boqolkiiba 90 wax ka badan ama 95 waa dhihi karnaa waa free yani waxbarashadooda wax lacag kuma baxdo jaamacadaha dowladda saas darteed jaamacadda dowladda waa xarey kartaa adoo meeshaada joogo online ka soo xarey kartaa application fee wax lamid inay kaa qaadaan laga yaabo 100 euro iyo wax lamid application fee hadda iska bixido oy ku aqbasho jaamacaddu markaad aqbalaada jaamacadda hesho ayaad programkan xareynaysaa iyo programada lamidka ah kale maxaa uu leeyahay waxaa la siinayaa funding for international students including bachelor students master diploma programs as well as degree programs leading to state examination macnaha maxaa laga wadaa markaad hesho tusaale ahaan waad soo xareysay jaamacaddii let's say bachelor master aad soo xareysay waa lagu aqbalay saa marka lagu aqbalaad hore ka xareynaysaa programkan ama se markaad applicationkaaga submit garayso oo aad haysato documentiga applicationka aad ku submit garayso jaamacadda evaluation document wax la yiraahdo ku siinayaan markaad xareyso markaas ayaad website-ka soo galaysaa website-kan kanaad gooni u xareynaysaa kuwan tusaale ahaan kii hore wuxuu 1500 arday u siinaya kan tusaale ahaan 40 arday u bixiyaa sanadkii maxaa waaye maximum funding corresponds to the BAF regulation kan maxaa waaye BAF waxaa waaye wasaaradda arrimaha soo galootiga qaabilsan Jarmalka marka way bedelaan mar walba mar waxay ka dhigayaan 2 sano mar waxay ka dhigayaan 3 sano mar waxa laga yaabaa laakiin adiga mar walba waxay ku xiran tahay programka lagu aqbalo haddii master lagu aqbalo 2 sano waad helaysaa haddii bachelor lagu aqbalo 4 sano waad helaysaa haddii post graduate ama PhD lagu aqbalo mar walba wax lagu aqbalo ku xiran tahay scholarship value maxaa waaye xilliga hadda la joogo yani sanadka xilliga la joogo ku xiran tahay mar walba ilaa 992 euro bishii inay siinayaan ardayga oo ah ku base garaysan nolosha waddanka yani ardaygu si uu noolaado sidoo kale inuu helayo cost of health insurance iyo scholarships dheeriya health insurance in laga caawinayo maadaama caafimaadka caymiska caafimaadka uu qaali u yahay maxaa lagu dhahay website halkaas aad sii raacaysaa markaa rabto inaad application paper tusaale markaa rabto halkaas aad raacaysaa further information way dheeri halkaas aad sii raacaysaa tusaale halkaas aad kili ku siino wuxuu ku geynayaa website-kii oo goonida ahay programkii Friedrich Ebert gooni halkaas markaa kasii raacaysaa dokumentiyadu maxay yihiin marka sidaa aragno program kasta waa gooni marka la dhihi karo dad scholarship markaan soo xareynayo ma dhihi kartid dad scholarship intaana documenti ama 3-4 documenti laga baahan yahay ma dhihi kartid waa inaad filter garaydaa mar walba marka 16 program oo ay kulay ardada 15 program ardada Soomaalida undergraduate-ka waxa u furan adiga marka undergraduate rabto inaad dalbato mid u soo akhri shuruudaha mid u soo arag waqti ku bixi insha Allah
maxaan sameynaynaa hadda graduate aan isla fiirinaynaa graduate markaan dib aragtaa way badatay ilaa 30 scholarship options ah kuu furan mid ayagana sidii hadeer oo kale wax farqiga uma dhexeeyo yani kuwa qaar magacooda kasii arki kartaa field of agriculture aa loogu talagalo kuleeyahay kan waxaa waaye art design iyo visual communication aa loogu talagalo kuleeyahay kan muxuu kuleeyahay field of music aa loogu talagalay yani kuwa qaar kan muxuu kuleeyahay performance art saas oo kale let's say aan xasuusto AI iyo software engineering mid ayaa jiray ardada badanka isla kan inuu yahay artificial intelligence so an kale oo kale ardada qofka mar walba de wuxuu ku xiran yahay programka maadaama master uu yahay waa in bachelorkaagu ay la xiriirtaa yani AI ay la xiriirtaa ama somehow ama computer engineering hayso ama software hayso ama whatever communication hayso wax un la xiriiro waa inaad haystaa backgroundkaaga kadib program descriptionkii target groupka yaa waa dadka la dooranayo high qualified prospective current or prospective yani current marka lagu leeyahay maxaa waaye arday ka diiwaan gashaan wadanka ama se prospective waa tii aad ku sheegayay arday markaas soo xaraynaya wadanka oo weli wadanka ka diiwaan gashanayn most students who achieved excellent status in bachelor studies markaad grade fiican ardada haysata bachelor studieska ardada grade fiican haysta academic requirementskiisa waa iska kooban yahay master student pursuing studies in artificial intelligence and related subjects simple يعني inaad jaamacadda xareyso oo lagu aqbalo artificial intelligence tusaale ahaan jaamacadda aniga aan dhigto waxay program ay hadda bilaabayaan aadan kugu talinayaa ardada inaad raadsiin jaamacadaha ugu horeysa oo waxay kamid tahay Europe bilaabaysa artificial intelligence in engineering ayay sameynayaan programka sanadkan ay kick off program qaybta ugu horreeyay furayaan waa soo xarey kartiin Clausthal Technical University ayaa la dhahaa Clausthal ama se TU Clausthal kaliya haddaad qorto waad soo helaysaa TU Technical University u taagan tahay marka technical iyo maxay kala tahay farqiga oo arki doontiin yani si qaas yani wax gooni aniga hadda sponsor aan ugu maalan laakiin si guud aan ugu sheegay ardada oo Jaanis furan waad ka xareysa tusaale programkan oo kale dad soo xareydo oo sanadkan ay furayaan kadibna aad dad scholarship ku soo xareyso oo dadka lagu aqbalo very good chance waaye yani 2 sano oo waxay ku siinayaan scholarship ah labadaas sano waa aragtaa 24 bilood uma baahnid inaad ka fakarto wax qarash waa imaanaysaa waxaad baranaysaa waxaad baranaysaa maxaa lagaga baahan yahay marka shuruudaha tusaale programkan kale CV-ga relevant diplomas copygooda iyo transcriptska ina haysato motivation letter fiican ina haysato previous experience in the field tusaale bachelor thesis bachelor haduu la xiriiray AI ama wax la xiriir haduu ahay chance fiican aad haysataa thesis-kaaga aad qortay ama project aad qortay wuxuu rabaa ahaado waxaa kale oo referralka halkan ayaad ka dambeysay referralka maxaa laga wadaa referencega iyo waxyaalaha midka proof of English language proficiency aad uu muhiim u yahay maadaama programka aad xareynayso tusaale ahaan uu English yahay inaad haysato English language proficiency halkan adiga lambarada waxba goonihaas xoogaas arag xooga waxaa saartaa inaad haysato English language la aqoonsan yahay IELTS ama TOEFL tusaale IELTS oo kale inaad grade 6 ama wixii ka koreeya haysato out of 9 waa marka saalantaa 6 inaad hesho iyo TOEFL-ka jaamacadaha meelaha ugu hooseeya 80 ay dhahaan out of 120 yani kuwa kala duwan jira range kala duwan yahay kuwa standardkan ka hadlaa kuwa online-ka lagu galaa jira wadanka kolley ardada wadanka joogta qayb online lagu galaa jira ma hubo engineerka maxaa malaynaa waad baari kartaa qaabka ku geli karto exam sida wixii aad geli karto Duolingo kala jira waa geli kartaa malaynaa wadanka adoo jooga inuu soo shuruudaha si badan kaaga baahnayn marka inaad haysato English language intaas haddaa haysato programka jaamacaddan soo xareyso lagu aqbalo aslan marka jaamacad soo xareynaysa language proficiency lagaga baahan yahay marka already adoo language proficiency-ga haysta CV-gaaga iyo diblomooyinkaagina haysta oo jaamacadda kusoo xareeyay wax dheeriya ma kaaga baahno programkan oo kale just xareeyo kaaga baahan yahay kaliya wax yar motivation letter qor kadibna baraka xareey insha Allah marka website-ka waxaan malaynaa dhamaantiin aad fahanteen interface-ka saas waaye mar walba marka website-ka adaa mar walba waxaad samayn kartaa bedeli kara mar walba waxa aad xiiseynayso goonida ah waxaan rabaa jaamacadaha aad rabtiin inaad xareysiin marka qodobkan aan rabaa inaan uga soo dhamaado kadib su'aalaha ayaan gudbi doonaa haddaad rabto inaad jaamacadaha xareyso ayaa xagaa ka heli kartaa jaamacad saa ku ogaa kartaa jaamacadaha lagu qadaha programmada deeqa website waxaa jira la dhaho DAD International Program DAD International Programs wuxuu soo koobaa
dhammaan programyada ingiliishka ku baxa waddankan Jarmalka jaamacadaha ingiliishka ay ku bixiyaan boqolkiiba 80 yani boqolkiiba boqol kuma wada jiraan laakiin boqolkiiba 80 waad ka heli kartaa study in Germany sidoo kale kiyaadaad aan soo arkayn ayaa qayb ka ah tusaalahaan halkan oo kale waad filter garanaa waa sida dayto kale waa simple waxaa tusaalahaan master rabaa inaan helo luqadiisu waa inay ahaataa English only subject aan dooranayna let's say engineering aan dooranay engineering and science search baad leedahay kadib maxaa helaysaa soo wada ha kadib maxaa heshay 410 program dadka qaar waxaa laga yaabaa in ku dhahan Jarmalka markii aad ku baranayso program Ingiriis ah inay hesho waa adagta 410 program oo engineering and science ah oo ah English only waa heeri master programs waa dhammaantood mideeda kale programmadan boqolkiiba 80 ama wax ka badan ama boqolkiiba 90 badhe waa jaamacado dowladeed oo ah ayaguna lacag la'aan kulligood jaamacadaha dowladda hal gobol Jarmalka waa maamul goboleedyo hal maamul goboleed ilaa hadda ka jira wax lacag ka dhigay oo magaaladan caanka ah oo maxay ahayd Stuttgart ay ugu weyn tahay maamulkaas marka laakiin intooda kale waa wada bahalka free yani waxbarashada marka ayadoo waxbarashadii free ku tahay haddaad ku xarayso scholarship aad ku xarayso scholarship aad ku hesho waxa laga yaabaa inuu ustaadisaan fiisaha ku helaa ha ka fekerin waxaas uma baahnid that's not big problem yani haddaa hesho scholarshipka waddanka ama safaaradda meel alaal meesha kugu dhow ood la tagto safaaradaada fiisahaaga waa lagu siinaa just adiga maskax niyadaada ha xumaynin meesha waxaa rabaa qisa yaroo aan soo xasuus inaan ku daro markaan carruurta ay mar walba waalidku ina dhihi jireen qayr ku feker waxaa laga yaabaa inaad adiga leedahay baasaboor Soomaaliyan haystaa meel laguma tago ustaad waa lagu tagaa annagaa ku dhahayn annagaa Yurub ku tagnay annagaa ku joognay intaas ku tagaynay baasaboorka haddii aad ku darto ducana ku dar mar walba of course yani waxaa kuma lihi waa top waa high kuma lihi lagama badbadinayo laakiin waa isticmaali kartaa si logic haddaad u isticmaasho adiga oo caqli aad ku darto waa isticmaali kartaa wuuna shaqeynaa safaaradda muhiim ah meel walba meesha kugu dhow ood ka tegi karto safaaradda oo chance u heli karto inaad ku tagto maclasaf waddanka waxaa laga yaabaa inaysan safaaradooda haddii ku taala xataa inaysan waxbarashada department inaysan lahayn laakiin wadamo kugu dhow Kenya oo kale Djibouti oo kale meesha kugu dhow tegi karto inaad ka hesho ayaa kasoo dalba kartaa fiisaha marka muhiim waxaa adiga mar walba xoogga saar mar walba waxaa ogaataa waxaa jirta marka sheekada waxaan ku keenay waxaa ku fakarta mar walba waxaa ku fakarta qayr ku fakarta sababta lagu dhahay arrintan mid aniga sheeka aniga ii gooniya maaha waa scientifically proven culumo yani cilmiga sayniska iyo muslimiin ah weliba cilmiga muslim islaamkana taqaana diinta taqaana qur-aanka taqaana ayaa sidaa uga sheeganaysa yani waxay ku masaleen mithaalka ugu cajiibsan oo aniga arka waxa inay ku masaleen shayga aad ku fakarayso sida mustaqbalkaaga soo ula xiriiro inay ku masaleen raadioga aad dhageysanayso markaad raadiyo furato frequency-ha raadiyoga aad geliso adduunka waxaa intaasoo kunoo milyan oo raadiyo ayaa hawada ku jira marka sababta adiga frequency gooni ah u dooranaysa maxay tahay yani 8.8 aa laga yaabaa inaad wareejinayso frequency wareejinayso marka frequency-gaas adiga raadiyoga geynayso ayaa waxay keenaysaa inaad ka doorato raadiyoyaashaas tirada badan oo hawada ku jira frequency-ha kala duwan leh inaad midka adiga rabtay aad ka doorato kadibna kaa rabtay aad maqasho marka waxay ku leeyihiin shayga aad niyeysanaysana waa saas oo kale yani inta adiga aadan fakerin ama shaygan aadan ku hadlin ama afkaagaba uusan ka soo bixin ayay maskaxdaadu intaasoo bilyan speed ah per second yani 10 to power 16 bilyan ay ka hadlayaan per second xawaare ah inay ku socoto marka muxuu ku leeyahay ku fakar adiga waxa wanaagsan marka wuxuu ku leeyahay frequency ayaa samada loo diraya kadibna waxay match garaynaysaa frequency mustaqbalka maxaa laga yaabaa inaad qaar ay dhahaan waxaan diinta maxay ka leedahay xadiis baa jira macnihiisu ahay dhammaantiin inaad maqashiin malaynaya markaad ku riyooto riyo xun inaadan sheegin sababtoo ah in laga yaabo in wixii samada lagu hayo wixii xumaay la soo daayo waa xadiis saxiixa marka sababta lagu leeyahay ha sheegin sabab baa ku jirta meesha ma garata marka maxaan ku keenay intaasoo dhan inaan ku dheeraado ma jeclayn mar walba khayr ku fakir mar walba adiga waxaan inaad samayn karto ku fakir just ku fakir inaad samayn karto ku fakir negativity ku fakir aamin wax kastoo adiga negative ku fakirto sida negative ka ah boqolkiiba 90 uu kugu imaanaya laakiin hadii positive ku fakirto mar kasta waxa positive ka ay imaanaya insha Allah taala marka raali ahaada xogaa ku dheeraaday intaas ayaan ku joojinayaa
injineerka ayaan ku wareeji doonaa haddii ilaa yaraado doctore waa la wareegi kartaa kadibna qaybta su-aalaha ayaan gudbi doonaa haddii ilaa yiraahdo. Cabdiraxiim aad iyo aad baa umahadsan tahay. runtii waxa weeye waxaan si gaar ah kugu mahadcelinayaa administrationka aad noo samaysay iyo qaabkaad maaragtay dhalinyarada iyo ardayda Soomaaliyeed aad maaragtay u tustay fursaddan. runtii aniga ruuxaddayda wax badan baan ka faa'iiday. waxaan rajeynayaa qof walbana inuu sidaas oo kaleeto uu ka faa'iiday. dadka gadaal ka soo galay insha allah sessionka oo recorded ah youtube-kan usoo gelin doonaa insha allah way ka faa'iidaysan doonaan haddii la yiraahdo. mar labaad iyo mar saddexaadba way daawan karaan. waxaan rabaa inaan guda galo su'aalaha iyo jawaabaha. waxaan ku talagalnay 15 daqiiqo laakiin maximum 20 daqiiqa ka dhigaynaa haddii la yiraahdo. waxaan jaanisaynaynaa qof walba oo gacanta taagta haddii la yiraahdo intii aan ka gaarno. qofka waxaan rabaa marka aan jaaniska siiyo inuusan 1 daqiiqo wax ka yar 30 second uu ku soo koobo magaciisa iyo meeshuu joogo kadibna su-aashiisa direct. taas waxay Saadi noo waxaan kaa sahlaysaa. geli karaa Ah, waxaa laga yaabaa dadka qaar for privacy information inaa halkaas inaa xaqiijido recordingka ma lagu daraa dadka maadaama personal information ay tahay recording waa joojin karnaa. Recording waa waa laga joojin karnaa. waa laga jaraa ama waa laga joojinaa soo maa mar Way walba haddan su-aalaha qaybta joojinayaa. Haddan joojinayaa. waa mahadsantahay jiran marka